الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضية معلمين با سلام كديب صباح وناكسن ساكا وحين قبسنا كلمة ديني أي نوسو تشيدين يا صدح أرضي أو كم إذا أرضي داوركا وقت وقوان وحين قبسنا ويوري أرضي كواد قرآن كينوف فريدونا محمد ذاكر محمد تفضل مشكورا كسر محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وحشلتو كاتغي انتا تيكسل لهي ارنها تنتاغنا موكاترارا تagta way tagtay tuur ka tirmaanka teedii hawtaa hintaada biriyo timaadada ha u tiirin hawlaha kadinkaaga soo tuman ha tiftiifin noolaha ha ku tuman asaaga ha tandhaafin digashada hadba hadal tumaatiya tiiqtiiqsi ha u odhan arxankiyo tudaaluhu yaanay kaa tafiirguyn qoortaaga kibirkiyo qabku yaanan kula tegin ha istaawin admiga taya inaad wax dheer tahay isku tali dabadeed tali ma tashada ha ii talin hadal toosan weeyaan haddaan saarku kula tegin kabihiisa kaan tolan adna yaanan kuu torin tukuuba dadkuu baray tartiib meed la aastiyo ka tixraac quraanjada tacabkiyo waxkeedsiga la tasho aboorkana tacniintiisa weydii dunuubaha dhibkoodiyo ka baqdaynta aakhiro dadku waari maayee dambi culus ka dheerow dalladu weeya noloshiye haddanaysan keligaa darmadaad ku jiiftiyo degmayaan laguu tirin iimaanku daankiyo doolar yaanu kaa gelin iyo aqoontu kaa didin damna yaanay kaa odhan aayadaha daliilkiyo yaa diitu kaa lumid dawa male xumaantuye xaq ayaan lagaa dugin malaa'igta duushaa dambi yaanay kaa qorin aakhiraa dambaysee yaan iilku kuu dumin rabbi daa'im weeye yuu naarta kuu dirin dabkiyo cadaabtuna hilbahaagayay duban ardadayada allow ilaali barnaba ha u jabin dhigooda dhagxumaa abidkood ka baaji cariyo dhakafaar ka baaji dhaliil iyo ceeb ka baaji dhib iyo hadimaa ka baaji dhuljiif iyo cadow ka baaji dambiil iyo dhamac ka baaji dhib iyo qodaxdeed ka baaji. nafisa cabdisamad ardayda codka nool aad bay u dhiiran tahay aad iyo aad baynu ugu hambalyeynayna iminka waxaan siinaynaa sidaynu ognahay ardaydii innaga inoo timi reer laascaanood dee kuma aynaan xidhin wax shuruud ah haddana waxaan kelmad siinayaa xafse cali cabdiraxmaan oo ah ardayda reer laascaanood oo kelmaddeeda odhanaysa xafse yar halka soo istaag tafadal. xafse cali cabdiraxmaan oo ka mid ah ardayda ka timaada laascaanood iskoolkaaga magaciisa alqalam halka waxaa ka soo jeedinayaa kelmad yar oo ah arday badan baa waxay joogtaa magaalooyinka aanan waxbarasho dhigan waxaan leeyahay waa inaad timaadaan ciise jeeriin
wax shuruud anaguma xirin bedelna lama weydiin waxaana loola sheegay in imtixaanka wasaaraddu loo diyaarinayso imtixaan gaar ah oo ardada ka timaada Laascaanood imtixaankeedu ka duwan yahay ardada kale waxaana leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka ardayda wanaagsan iyo macallimiinta cilmiga baraya ardayda ku dadaalaya si ay soo saari lahaayeen jiilal cusub oo jiilalkii marba jiil baa soo baxaya marba macallimiinta soo saaraya jiilalka sida wanaagsan noogu dadaalaya in wax noo baraan waxaan ka hadlaynaa dhowr qodob oo ay muhiim tahay in laga hadlo الأول وحوي التقوى إلى الله ألين لقى عفسه وأين نكون مشغولين شهوات كان يوحياهن حويان الدنيا ده الله سبحانه الدنيا ومال مكوان إننا مال مهاجر وكوان أين كل من وقت جينا والله سبحانه وتعالى كعفسنا وأن الشيطان كان يسكع عابنه الشيطان هو عدو دار وحكم مرئينه إن الروميو حويان وادير جري وينكرت متويه ووحلا بيعان يا وارد جيو maxaan ku yiraahdaa macallimiinta loo baahan yahay macallimiintan waxay u tahay inuu arday soo baxo ardaygu ardayga kale ku dhiirado oo uu ku dhiirado waxbarashadiisa iyo magaalada encouragement-giisa labadaba uu ku dhiirado oo uu yimaado taarabuunka halkan tuu yimaado wixii fakar uu hayo uu ka soo jeediyo qofku markuu maanta yimaado berrito waxa weeyaan dee ka sasi maayo si fiican buu fakarkiisa iyo fishankiisa usoo jeedinaya arday waliba waa inuu ku talagalaa ardayday waxaanu ka soo laabanay 2 maalmood oo fasaxa oo jimcihii khamiistii ahayd maanta casharkeenu wuxuu ku qotomaa waa casharkii taxanaha inoo ahaa taariikhda nu baranaynay maanta waxaanu qaadanaynaa dagaalkii loo yiqiin islaamka noqodka dagaalkan islaamka noqodka wuxuu ku fadhiyaa mawduuc aad muhiim u ah markii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday ama uu baneeyey islaamka booskii ugu jiray watay carabtii isku timi waa la isqabtay waxaa la isku qabtay 2 qaybood qayb waxay ahayd muhaajiriin qaybna maxay ahayd ansaar muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriin iyo ansaar labadaa qolyo way isqabteen markii nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam nabiga ku salliya sala allahu calayhi wasalam markii uu geeriyooday qolihii muhaajiriintu waxay yidhaahdeen xukunka islaamka anagaa xaq u leh sababtoo ah nebiga ayaan la soo hijiroonay oo maka aanu kala nimid qoladii ansaartana waxay yidhahdeen annagaa xaq u leh maadaama aanu islaamkii aanu u gargaarnay aanu soo dhoweynay nebiga sidaas ayay isku qabteen markii dambe shirkii markii la iskugu yimid doobtii la odhan jiray binu sacad binu saciid waxaa lagu heshiiyey in abubakar sidiiq radia allahu canhu loo dhiibo xilkii islaamka wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weeweecan mayno wahsan mayno waaban mayno maxaan ku rahdaa monthly examination ayaan gelaynaa imtixaan bileed waxaynu dib u muraajacayn doonaa teenisiyadii aynu qaadanay ayaynu dib u muraajacayn doonaa muraajaca ku samaynayna waayahay bismillahi raxmaani first before I start the explanation I would like to ask you general questions about the tenses. The first question is what is a tense? What is a tense?
What is a tense? Haddaynu doonayno inaynu ku samayno definition. Qeexid. Haddaynu ku samayno tense waxa la yiraahdaa waa time. Wuxuu ku sheegaa time of action. Xilliga falku dhacayo kaliya. Waxaanu soo qaadanay different tenses. Tense kala duwan sida present to continuous tense. Present continuous tense. Ayanu soo qaadanay. Waxaanu soo qaadanay simple present tense. Waxaanu soo qaadanay simple past tense. Waxaanu soo qaadanay simple future tense. Waxaanu soo qaadanay past continuous tense. Waxaanu soo qaadanay present perfect tense. We have already taken these 6 tenses in English language. Before I start to make explanation about these 6 tenses, I want to ask you one question about the tense. First, what's a tense? Waa maxay tense? Tense waa maxay? Tense maxaa la yiraahdaa? Tense maxaa la yiraahdaa? English waxa uu leeyahay there are 12 tenses in English. English wuxuu leeyahay 12 fal ee dhacdo oo kala duwan ayuu leeyahay. haddaba tense macnihiisu waa maxay? waa maxay waqti weeye? What is a tense? macnihiisu waa maxay? waa maxay waqti muxuu yahay? Tense haddaynu inaynu qeexno, tense is the form of the verb which indicates the time of action. waxa weeye waa hab ficil kaasoo ku cadaynaya xilliga falku dhacayo. waxaynu soo qaadanay tense ugu horreeyay tense sida loo oran jiray present continuous tense oo macnihiisu ay tahay dhacdo fal hadda dhacaysa, fal xilligan taagan ayuu kaaga sheekeynaya. 3 meters per second with a constant velocity towards east for 6 seconds. A student travels ardayga wuxuu socdaalay oo socday 3 meters per second 3 mitir daqiiqadiiba ku socday with constant velocity wuu ku socday xawaarad joogto ah towards east xagga bari wuu socday for 60 seconds wuu socday 60 daqiiqo. What is the displacement covered by the student within a given time? Waa maxay displacement uu socday ama cover uu daboolay by the student within a given time? xilliga go'an ee lagu siiyay ee kor lagu siiyay imisuu ardaygaasi waqtiga ku daboolaya. Okay, markaanu ka shaqeynayno the first marka hore waxa weeyaan given. maxaan haysanaa? given waa maxay lagu siiyay? given maxaa haysataa? fee ma haysataa? oo maxaa haysataa? 3 meter per second waa v. fee maxay u taagan tahay? velocity. waayay to east wajahay wadataa marka velocity waa displacement wata direction soo ma ahayn? direction buu wataa marka muxuu noqonayaa velocity. Okay, waxaan haysanaa v 3 meter per second to east baynu haysanaa. waayahay t ma haysanaa? oo maxaan haysanaa? 60 seconds baynu haysanaa. waayahay maxaa naga maqan? maxaa la raadinayaa? waaya tani waa givenki waayta. given waa marka aad ka shaqeynaysid marka hore what do you have? ma inaad ku bilowdaa maxaad haysataa? maxaa kaa maqan? sax ama waxaa dhihi kartaa tiro marka 4 lagu dhufto keenta 8 maxay noqonaysaa? waa 2 soo ma? 2 lagu dhufto 4 waa 8 soo ma? ka maxay noqonaysaa? 2 ayay noqonaysaa. Okay, su'aasheena labaad maxay noqonaysaa? 16 loo qeybiyo 4 haya cadale waa 4 ama tiro marka 4 lagu dhufto keenta 16 waa 4 soo ma?
okay labadan su'aalood dambe insha Allah idinka ayaa isku dayi doona ya labadan su'aalood dambe idinka ayaa isku dayi digaagadii waxa ay ka codsatay saaxiibadeed in ay la soo gooyaan galeydii aynu ogeyn in marka hore markay heleen maxay samaysay markay heleen maxay ku tiri way diideen inay la soo qaadaan markii ku xigeenna inay la beeraan hadeerna maxay diideen inay la soo gooyaan ya marka casharkeena waxay maraysaa hadeer in ay la soo gooyaan ayay diideen galeydii haddii aadan qofka wax ku darsan maxaanu ka qaadanaynaa haddii aadan qofka tacab ku darsan hadhow wuxuu soo goso miyaa la leedaa ya haddii hadeer la beeraan markii hore la soo qaadi lahaayeen la waraabin lahaayeen la beeri lahaayeen la soo goyn lahaayeen hadhow sheekada xagga dambe nugu tegaynaa intaa hadday samayn lahaayeen maxay yeelan lahaayeen way la cuni lahaayeen waa dugsiga hoose dhexe Cumar Ciise ee degmada taariikhiga ee Taleex dugsigan oo ah dugsi qadiimi ama taariikhi ah sida backgroundkiisa ku qoran waxaa la aasaasay 1962 xornimadii 2 sano kadib guryahan aad aragtid ee saddexda qola waa Ingiriiska baa dhisay inta kalena lixda halkaa ka soo jeedana waxaa dhisay dowladdii Maxamed Siyaad Barre militariga ahayd wax ka dambeeyo cid ku dartay ma jirin qolka waxa weeye buugta la dhigo oo store-ka waay wasaaradda waxbarashada Puntland markuu dartay mooyee wax kale oo la kordhiyay ma jiro oo dhisme ama fasal ah qolkan macallimiinta iyo ardayda ayaa iska kaashaday fasal xafiiska intaas waa iskuulka iyo backgroundkiisa hawsha tan inaga soo kordhay magaalada Laascaanood ardayda anagu iskuulka ma baanaan xidhin maalintii intay wasaaradda waxbarashada iyo maamulka Puntland soo saareen warqadihii ay ardaydu ugu fududeysay waxaan sameynay maamulayaasha inta rajistaraysanay iskuulada sida Ilays Gateway ayaan waxa weeye ardayga maamulihiisa maanu wacna meesha ku sheego iyo registration numberkiisa xaadirska uu kaga jiray magaciisa soo sheeg baan lahaynaa inta ma yahay bas waa fadhiisnaa wax shuruudo kale kuma aanan xidhin sidaad arkayseenba iyagoo dareyskoodii ama dharkooda caadiga ay siteen ayay waxa weeye galaasyadooda fadhiisteen dhibaatada ugu weyn oo haysatay waxay noqotay fasaladu waa iska roonaayeen agab qaar baa qadifada ku fadhiya soo arki doontid lix bay u fadhiyaan shan bay u fadhiyaan waxa weeye kuwii hore u joogay baanu ka kicinay furaastii si ayaan meel waayin magaalada waa u baadhnay furaas looxaan yaryar oo isugu kakabnay baahida ugu weyn oo taagan waxa weeye inay helaan agab furaas iyo miisas arrintaa wasaaradda waxbarashada dhowr goor riboodka waa siinay iyo emergency-yada weli wax natiijo rasmi kama hayno waa saxeynaa magaalada lafteedu inay ardayda furaas iyo wixii kale u qaban karaan ugu qabtaan waxa weeye furaas caaga xataa hadday u helayaan inay soo siiyaan waa fiicnaan lahayd qodobka kale waxa weeye ardayda timi in badan baan xaafadaba lahayn marka dugsigan waa dugsigii ugu weynaa WFP kama ay hawlgelin qolada feedinku lama ay soo xiriir lama laha sababtaasna meesha kuma jirto nambarkii ugu badnaa degmada Taleexna ardayda anaga qabanay iyagana waxa weeye waa la kulanay waa dhow reportkana waa siinay inay ardayda u raadiyaan waxa weeye feedin waa qodob meesha ku jira agab iyo kuraas ku fadhiistaan in ay helaan waa qodob meesha ku jira labada qodob baa baahiyaha ugu muhiimsan aad iyo aad baan waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awba
ubax laga waraabsho waagii baryaba ubax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weewean mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weewean mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaaro wadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaaro wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku arkeena wadankeenu